oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu ugu wareejiyay xilka dukumeentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad oo aan fahmi waayeen dabcan walaalkii waa joogaa dib aan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheenii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kale dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhamaato kuna dhamaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhamaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxayna intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tashan doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraahdo xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkan u noqdo wixii qadaayaad oo waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii aan la yiraahdo sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlayo dhan haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof kaligiis iyo laba iyo lagu dhamaystirkeeda lagu qofku mas'uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha kaliya maaha dawladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha aadan ugu mahad celinaya madaxweynaha mahadsan Allah ku mahadsan Yeah.